Cable TV. waxaa si rasmiya maanta u soo gabagaboobay shirka sanadlaha ah ee saxafiyiinta Somaliland kaasoo muddo 2 cisho ah ka socday magaalada Hargeysa. Shirkan oo lagaga wada hadlayay baahiyaha arrimaha bulshada sidii ay u gudbin lahaayeen saxafiyiintu sidoo kale looga hortagi lahaa caqabadaha ku gadaaman saxafiyiinta xorta waxaana ka soo qayb galay gabagabadii shirkan madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici sidoo kale xubno ka mid ah golaha wasiirada aqoon-yahano iyo siyaasiyiin taasoo lagu lafaguray baahiyaha ay saxaafadda xorta ay u qaban karto arrimaha bulshada sidoo kale waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah saxafiyiinta Somaliland ururada arrimaha bulshada iyo sidoo kale ururka saxafiyiinta Somaliland Soldier oo soo qaban qaabiyay shirkan muddada 2 maalmood ka socday magaalada Hargeysa ugu horeynna waxa shirkaasi ka hadlay agaasimaha ururka saxafiyiinta Somaliland Soldier Yaxya Xanas sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kale wasiiro oo iyagu ku goobaabiyay bahda saxaafaddu inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada inta niga dambaysa si official ah noogu xiri doonaan ka bacdi markaynu xafladda xidhanana waxa aynu abaal marin doonaa ashxaas odayaal iyo saxafiyiin inta runtii mutaystay in la abaal mariyo ururada saxaafadda ee soo dhismay ururka Soldier oo ugu daaweyn ugu cumri dheer waxaan ku hambalyeeyaa inuu imika wali yahay urur isku haya saxaafadii marka waxaan doonaynaa saxafiyiintu inay qayb ka noqdaan horumarka ku dhisan technology-ga annagoo taa ka duulayna waataan sameynay barnaamijkii government-ka marka qayb ka noqdo wacyigelin fara badan bay u baahan tahay dhanka kale waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka Mudane Maxamed Muuse Diiriye gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Soldier Xamuud Jaamac Xuuto wuxuuna idinku baarigaya inta heli doonto jaaysada la siin doono oo ah in mutaysatay runtii hawshii mihnadii ay soo barteen oo adeegay ummadooda oo wax soo saar keenay ama ku dayasho mudan waxa laga yaabaa boqolkiiba 90 inaynu inta badan saxaafadda u naqaano ama warbaahinta u naqaano inay siyaasad tahay ma aha boqolkiiba 90 waa adeeg waa ummadba wax loogu qabanaya shirkan si aad la socotaan wuxuu ku saabsan yahay 3 arrimood in aanu xusno maalinta saxaafadda Somaliland oo loo asteeyay 9 November sidoo kalena in aanu abaalmarin siino saxafiyiintii tartamayaasha ahaa ee ku tartamayay Cawka Media Award iyo qodobka saddexaad oo ah ugu muhiimada weyn oo ahaa in saxafiyiintu ka hadlaan oo ay soo bandhigaan baahiyahooda iyo danahooda ugu dambeyntiina waxa shirkaasi soo xidhay oo soo gabagabeeyay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan marka hore u mahadnaqayaa hay'adda Soldier inoo qaabilsan ee soo abaabushay ama soo qorshaysay barnaamijka runtii aad u qiimaha badan leh saxaafadda sida laga wada dhawaajiyay qiimaha leeyahay waa la garanaynaa waa waxa kubciya garaadka bulshada waa wax dimuqraadiyadda qayb ka qaata sidoo kale waxa abaalmarin la guddoonsiiyay qaar ka mid ah saxafiyiintii ka qayb galay abaalmarinta Cawke oo sanad walba ay qabtaan ururka saxafiyiinta Soldier kuwaasoo 35 saxafi ay ku tartamayeen sanadkan guuleystayaashiina la guddoonsiiyay abaalmarinta مبارك محمد عبدي هون كيبل تي في هرقيس adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo e-dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida